حمدان تقانا سيدي محابس السوق بتاع مات والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم waxaan marka koobaad halka ka salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan iyo taqaran kaba anigoo ku hadlayo magacayga oo ah Cabdi Cabdillah Ismaaciil Kaahin kana tirsan golaha dhexe xisbiga wadani iyo xubin kamid ah dhalinyarada ugu firfircoon xisbiga wadani wax badan oo soo qabtay markhaatire laga wada yahay waxaan maanta anigu waaya aragnimo badan soo faa'iiday wax badan na fahmay aan iska casilayaa xubinnimadii iyo golihii dhaxaba sababaha xagga damaan ka soo sheegi doonaa laakiin iminka dhowr arrimood baan doonayaa inaan oo soo hormariyo waa ta koobaade waxaan dooranay hogaamiyahana waxa lagu doortaa asbaabo u gaara oo la yaqaan cira waxa weeyaan hogaamiyaha xisbiga wadani una sharaxan madaxweynaha inuu noqdo sida daraadeed cira waa shakhsi aad iyo aad u fiican balse hogaamin male waxa weeyaan dhowr sababood hogaamintiisu waa hogaamin jilicsan waxaanad ku garanaysaa inuu jilicsan oo cadayno ah ciro markii hore aflagaadada iyo cayada muu aqoon balse imika waqtiyada dambe waraaqa loo soo qoraa hadalla loo soo laqimaa cay iyo fadeexad dabarjab ku aqrannimada Soomaaliland oo ummadda Soomaaliland kala fogeynaysa ayuu ciro ku hadlaa mana diidi karo jilay caad ku garanaysaa taasi waa ta koobaad talabaad waxa taladiiba maroorsaday rag badan oo imika xisbiga yimid raggaasina waxay wataan qadiyad muusan nacayba buug muusan nacaybi sitaan saddexaad waxa weeyaan ciro xisbigiisa ilaa maamul daadajin heer degmaha muu sameey haddii degmo wax looga baahdo isaga loo yeedha waa inuu isaguna mustambeedka kala tashadaayo dadka kale hota ciro hogaamintiisu waa caynka anoon ku raagin hogaaminta ciro oo dad rag ay wada hadli doonaan ay sifayn doonaan waxaan daraasad ku sameeyay raggan muusan nacaybka wata ee xisbiga loogu yimid ee ah siyaasiyiintii ugu magacaweynay Soomaaliland raggaasi markii aan dib u raacay nacaybkan muuse talo maxay muuse ku naceen waxaan ogaaday inay muuse ku naceen 6 shay waxay ku naceen qodobka koobaad muuse waa hogaamiye adag muuse waa hogaamiye go'aan leh muuse waa hogaamiye inay muuse waa nin rusheega muuse waa nin ballanta ku adag muuse waa mujaahid dalka naftiisa u soo huray wax badan oo qabtay qarankiisa sida daraadeed 6 shay waxay ku abuurtay nacaybkiina ay 6 shay ku abuurtay waxay jeclaadeen ciro oo 6 shay anti ku aan midna lahayn oo dantoodana ka fushan karaan musuqmaasuq la sameyn karaan waxa taan ku cadeynaya rag kamida ragana sheegay muuse nacaybku isagoo khudbadaynay wuxuu soo istaagay khayriye ka khudbadaynay oo lalii wuxuu ku dhaartay in ciro wax la cuni karo taasi waxay cadeynaysaa inaan muuse waxba la cuni karin muuse la talin karin muuse waa nin taliya looma taliyo laakiin go'aanka wanaagsan iyo talada wanaagsan waa wax qaata ciro waa nin go'aan hogaamintiisu ay tahay kaliya ma yaba ma yiraahdo ninkaas muddo badan baan la soo shaqeynay ku sii dheeraan ma hadalka waxa ay wax ka faahfaahsan ba waan soo bandhigi doonaa intaasaan kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكم حق السلام يا صحافة كل جيد أنا كل ريبين. أنا كم قاعد وحويان هذا نحن مرة وحنا هاي قدوميها تجمد إبراهيم كود بالحسب الوطني. هالكم حق الشيء يا مانتك شاعنا يا. إن نحن كي حسب جانو هاي يحب النمدي. أنا هالكاس كيعسي. سبب أوجد. أنا ديمنا كل شيء قدونا إن شاء الله ديرها حفلات تنبيه يو كلامات ما يسمون دون. degmadii aan ka ahaa gudoomiyaha waxa ka dhacday maamul xumo ay u sabab yihiin waliba hoggaanka xisbiga au kala sareeyaan ama kala sareeyaan sida xogayaha guud oo kale marka waxaanu leenahay haddii kala dambeyn iyo lagu hayo iyo tashri waayo waxa ma soconayaan xisbina ku jiri maayo marka taasaan maanta u sababa qabixitaanka aan ka baxnay xisbiga wadani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka waraalkan waxaan ku salaamayaa dhammaan saxaafadda madaxa bannaan iyo taqaran kaba
magacaygu waa cabdi xaasha ayaan leh waxaana xubnihii ugu firfircoonaa oo ka tirsan degmada ibraahim koodbuur waxaanan ahaa haldoorkii bismillah waxaanan ahaa raggii dhallinyaradii ugu firfircoonaa ee haldoorkii waqooyiga hargeysa sababo badan ayaanu isku casilinay kadib markaanu aragnay xisbigan inay ku soo biireen niman buuq badan samaynaya sheekadooduna ay tahay un cay iyo aflagaado iyo waxaan loo dul qaadan karin sababaha darteed wax badan oo jiroona xalfad dambe ayaan dib uga kama doonaa insha allah hadduu la idhaahdo hadalkana intaasaan kusoo koobanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمزة إبراهيم عبد الله أهنا قدوميها قرب كدانيرada waxaan halkaa aan uga sheegayaa ee wadani waxaan halkaa ka shaacinaya maanta degmada Ibraahim Koodbuur waxaan halkaa ka shaacinayaa inaan iska casilay xubinnimada aan xisbiga wadani aanu hayay midda kale waxaan halkaa aan ka sheegayaa in xisbiga wadani aw hogaamintiisu aad iyo aad ay u liidato maadaama oo ay liidato yaa aanu heerkii ama hierarchicalkii dowladnimo aanu halkaa ka muuqan halkaas sidaa awgeed waa xisbi aad iyo aad u liita sidaa awgeed aananu ka weynay midda kale aanu ka weynay wixii aanu ka doonaynay ee dhallinyarnimo aanu uga doonaynay eenu u soo galnay aanu halkaa ka weynay asalaamu calaykum intaasaanaan kusoo gaabinaya degmada arabsiyood isla markaana ahaa golaha dhaxana ahaa ee xisbiga wadani aan ahaana dhalinyartii aas-aastay guriga subeer abal ee wadani muddo badanna xisbigaa ka shaqaynayay tacabnaga galay maanta oo bisha kow tahay anigoon wax cadhi igu jirin miirkayga iyo maankaygaba qabaa gebi ahaanba waan iska casilay xisbigaa wadani waxaana maanta wixii maanta ka dambeeyna aan dhisayaa musharaxa muuse biixi cabdi sababo badanna waan iskaga casilay oo xisbigaas ah horta hogaamiyaha ama musharaxa xisbiga wadani waa nin aan jilicsan oo aan go-aan qaadasho lahayn waxna diiday waxna yeelay waxaa kaloo jira dad noogu yimid xisbiga oo uu kow ka yahay nimanka wasiirada soo ahaa maxamed biixi yunis axmed jaambiir cabdilaahi ciro abiib diiriye ismaaciil yare iyo kuwa xilalka ka haya ee xisbiga ka haya ee u dhashay ka soo jeeda waqooyiga iyo galbeedka hargeysa xisbiga wadani dhammaantood waa qaxooti siyaasiyiin qaxootiye weeyaan oo u qaxootiya wadani siyaasiyiin qaxootiye oo qaxooti ilaa ka jirin laakiin nimankaas waa siyaasiyiin qaxooti ah waxaan ku soo qaxin wadani keliyana waxay hayaan si ay muuse biixi aan u ridi lahaayeen keliya xitaa in badan way ku guuldaraysteen inay deegaanada ay ka soo jeedaan inay ka dhisaan maamulka xisbiga ama structure-ka xisbiga degmooyinkaasi laga soo bilaabo waqooyiga ilaa galbeedka hargeysa siyaasiyiinta qaxootiga ay degaan way ku guuldaraysteen inay ka dhisaan xitaa structure xisbi oo jira markaa xitaa ciro ma dhisayaan laakiin keliya waxa weeyaan muuse harid waxaan ka buuxdaa dad iyo cadho ay hayaan muuse biixi cabdi anagu dhalinyaro badan inay tacab ka galay baana xisbiga muddo badanna aan joognay xisbiga wax badan xoogaal u ah taasaa jirta iminka degmadu waxaa degma hadday tahay juun koodbuur daarsalaam agabar arabsiyo gabiley wajaale waxa structure xisbiyo nimankaa waaweyn ee halkaa ku jira iyo kuwa xilalka haya xoogayaa guud in warcad ugu horreeya waxa structure xisbiga ka dhiseen ma jiro markaa xisbigii wadani markaan ku aragnay maamul xumo iyo kii xisbigu aanu structure-kiisii hoose aanu dhisnayn oo wax ka hooseeya aanu jirin oo structure-ka hoose aanu dhisnayn ayaanu garay inaan meesha waxba jirin
diidna annagoon cadhan ugu jirin wiilkeema qabta asxaabtayda dhalinyartaasina waxaanu ku aasannay inaan gebi ahaanba xusbiga ka baxno si toosana aan ugu biirno xusbiga kulmiye aanu dhisno aanu ka qayb qaadano furaha guushaas in aanu ka qayb qaadano haddaa la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu على محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta aad baan idin salaamaya qolada saxaafadda ummadda Soomaaliland oo dhan waan salaamaya assalaamu calaykum salaanta islaamka ku salaamaya anigoo maanta magacaygu yahay Haaruun Maxamed Biikani kana mid ahaa xubin ka tirsan ama xubin ka mid ah xisbiga wadani waan iska casilay sababo badan awgeed sababahaas haddaan maanta idhaahdo waa sababo badan oo 1 2 3 4 danadii tiriyo niyow lamaba soo koobi karayaba xisbiga maanta wadanina waan ka sii socdaa oo wax dhaliilay haddaan maanta u sii jeediyo oo xisbigan ka sii socdo waxa la oran doonaa inkastoo bariyahan caydi yar badatay dayo nimanka dalkana waa laga wada hayaa wax kelmado caayiyo kelmad xumaan aan ka sii tagi maayo mar haddaan ka sii socdana waxaan leeyahay waan ka sii socdaa laba fariimood laba ayaan qaloo wadaa oo qolada aan kaga yimiday xisbiga wadani dhexdiis laba fariimoodna waxaan u wadaa bulshada Soomaaliland oo dhan qolada xisbiga wadani aan kaga yimiday imikeen ka sii socdo waxaan leeyahay war xisbigu uu idigu duldumayay eeradee imika go'aanka saxda ka qaat waynu saragnaan wax maanta inoo qorsan ma jiro qodobka labaad kale waxaan leeyahay nimanka hoggaankow dadka mowqif iyo mabda baa loo sheegay qabiilkii kala qaybinta ka daayay labada qodob ee kale bulshada Soomaaliland sheegayaan waxa weeyaan war anagu ka garab ahaan maanta garabkayga soo gaay ee cudud leh ee xisbiga wadani ka soo gaay ee maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan labada qodob fariintaan ummadda bulshada aan wadna waxa weeyaan waa ninkii ciro hogaamintii dalka markii hore aan la soconay imika oo culayskii ugu badnaa kaamil soo koray ayaanu aragnay ninkaas hogaaminimadii anagu waanu garan weynay waa qodobka labaad kale waxa weeyaan in maanta xisbigii wadani xisbi qabiil noqday oo dadkii kala qaybinaya anigu waxaan ahay nin kamid ah labada nin saraxa mid kamid ah aad isku dhownahay taa inaan ku doorto ma hadda qabiilay inaan ku doorto waxa weeyaan mabda mowqif aday iyo ballanqaad sax marka aanu imika hadalkayga waxa ku soo gabagabeynayaa labada fariimood iyo labadii hore qolada xisbigayga kaga tigaa asxaabteeda ahayn wassalaamu calaykum sidaa ay nabadgelyo doonaa waanu garab taaganahay dhaliilaha ama aragtiyadan kaga nimid xisbiga mucaaradka wadanina runtii xagga dambe aan ku sheegi doonaa maanta aflagaado halkan marin mayno caay halkan marin mayno muhiimadda meesha taale waxa weeyaan waxa la doonayaa waa kursigan cidii ku fadhiisan lahayd waa title-ka ugu sareeyay madaxweyne waxa weeyaan dadkan ma u talin karaa xilkan ma qaban karaa kartidan ma leeyahay runtii nin u soo dhintay nin dulqaadkeegii lahaa nin intaasoo dhan dalkan u soo taagnaa iyo nin intuu iska yimid maanta la leeyahay ciddii timid ee kursiga cadha nacaybka iyo cayda muuse bixi u timid ee halkan siyaasadda horeba ugu fashilmatay ee aan hore waxba dalka uga soo qaban way naqaanaa wasiirada halkan soo yaacay maantana halkan waxay soo fadhiyaan waa cay iyo aflagaado taa looma baahna Somalilandna loogama baran waa isku tanaasul iyo xurmaa loo baahan yahay runtii dalka waxa lagu aamini karaa waa mujaahidka waa aqoonyahanka waa muuse bixi cabdi bismillahir rahmanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waxaan salaamayaa Somaliland iyo shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland dhamaantii waxaanu maanta halkan isku yeernay inaanu shaacino waxaan ugu ogeydeen shacabka jamhuuriyadda Somaliland iyo guud ahaan ummadayadu waxay ugu ogaayeen inaanu ka tirsanahay xisbiga wadani anigoo ah Maxamed Muuse Maxamed kuna magac dheer tiyo ahna xubin ka tirsan golaha dhexe kana mid ah guddiga fulinta xisbiga ahna hoggaanka ku-xigeenka tacliinta sare ee xisbiga wadani waxa maanta oo bisha ay tahay 1 November 2017 waxaan halkan ka shaacinaynaa inaanu kabi ahaanba odhamayno waan iska casilnay waxaan qabnaa inaanu dallacnay ee waxaanu ka tagnay xisbigii wadani guud ahaanba xubinnimadii tii golaha dhexe tii guddida fulinta iyo xilkii aan ka hayay tacliinta sare saaxiibaday waxay ka hadleen qodobo cadcad iyo sababo jira oo aan uga nimid xisbiga wadani waxaan ahaa raggii ugu horreeyay ee xisbiga wax ka dhisa
dhalinyartii ugu horreysay xisbiga lagu aasaasayna waanu hayn muddo soo shaqaynaynay waxaan ku soo shaqaynaynay waxaan isku ogeyn oonu ka midaysnayn in xisbiga la dhiso saddexda xisbiga qaranba la dhiso dalka horumar u jiidno oonu gaadhsiino meel fiican siyaasadda iyadii waxaa beddelay rag dhabqinaya ciyaarta oo dhexda nagaga soo biiray ka soo bilow dowladdii cabdiraxmaan tuur alla u naxariistee tiina cigaal tii daahir yaale iyo tan kulmiyaba intaba raggii ka soo shaqeeyey ee qarankan inta badan fashiliyey ayaa nooga daba yimi xisbigii nagaga batay dabeeto waxaanu garan weynay waxaanu beddelayno ciddii la beddelayay lafteedii ayaa noogu timid meeshii xisbiga waddani wuxuu ahaa xisbi mucaarida anugu cabdiraxmaan cirro in badan baanu soo wada shaqaynay waa nin muxtarim ah waa nin ahlu karaamo ah waa ahlu sharaf ah waa nin wanaagsan cabdiraxmaan wax dhaliilo oon halkan ugu jeedinayaa ma jirto marka laga tago madaxa meel saaraaxo jirtaa ma jirto ka sarraysaa ma jirto ay soomaalidu tidhaahdaa cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninkii kala shaandhayn lahaa ummadda cidda soo biiraysa kuwii aynu shalay 2 cisho ka hor aan ku eedeynayna inay qarankan burburiyeen ayaa haddana habeen kadib anaba 2 cisho kadib imanaya xisbigii waa loo socodtumayaa isla xisaabtan ma jiro waxaan halkan leeyahay waxaanu go'aan ku gaadhnay dhammaantayo annagoo ah garab dhalinyaro taageerayaasheeda maroodi jeex iyo gebile iyo galbeedka hargeysaba ay u badan yihiin waxaan u sheegaynaa inaanu go'aan qaadanay ah inaanu galno xisbiga kulmiye la kala dooran maayo maanta asxaabta qaranka inaynu dhisno oo musharaxiinteena ku qiimayno maxay qabanayaan dalka maxay u qabteen weeye markaa waxaan leeyahay laba midabka dayrcada laba doobta wada ridaa da'da 10 wada jiray daymada aan kala dhicin markay doorashada tahay hidiya dirkooda midna geel ku dari kara midna looga daaya markaa wax kale ma ahay waxa weeyaan uun inaynu xulanno hogaamiye wanaagsan oo wax qaban kara go'aan leh ummadda Soomaaliland uga baratay wanaag xisbigii waddani rag waxa yimid horta waxaan noqonnay xisbi hadalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fabrad wala imo iyo xisbiga kulmiye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh